Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhammaantiin waan idin wada salaamay waxaa muhiim ah qofka baranaya software engineering ama programmingka inuu fahmo laba arrimood ama laba concept oo muhiim ah labadaas oo kala ah maxay kala yihiin interpreted programming language iyo compile programming language marka videogan waa video gaaban oon ku sharixi doono labada concept marka ugu horeysa waxaa muhiim ah inuu qofku fahmo waxaa jira programka adigu aad editorka ku qoreyso waxaa la dhahaa source code ama high level language kaas wuxuu kuu fududeynaya adiga inaad qorto laakiinse CPU-ga oo ah maskaxdii fulinaysay ama run garaynaysay ama execute garaynaysay codekii aad qortay ma fahmayo codekan aad adigu qortay laakiinse waxaa jira waxa la dhaho compilerku markaa codekii aad adigu qortay ayuu wuxuu u bedelayaa luqad CPU-gu markaa uu fahmayo oo uu fulin karo luqadaas waxaa la dhahaa marka machine code marka CPU-gu machine codekaas ayuu fahmayaa oo uu markaa execute garayn karaa ama uu fulin karaa taas haddaynu fahnay waxaa kaloo muhiima marka inaynu fahanno labada waxay kala yihiin marka compiled iyo interpreted language compiled language waxaa ka mid ah matalan C++, C sharp, Fortran waxa weeyaan marka hore luqadii source codekii aad qoraysaa oo hadda kaynu soo aragnay waa examplekii hadda ama tusaalihii hadda aan soo aragnay codekii markaad qorto program ayaa compile garaynaya wuxuu ka dhigaya machine codekaas ayuu markaa CPU-ga run garaynaya marka codekan intaadan run garayn waxaad u baahan tahay inaad compile garayso kabacdi ayaad markaa run garayn kartaa codeka laakiinse interpreted languageska sida waxaana ka mid ah sida matalan pythonka iyo javascript PHP dhammaantood waa wada interpreted language source codekii markaad qorto uma baahnid inaad compile garayso waxaan toos ayaad markaa u run garayn kartaa laakiinse waxaa jira waxa la dhaho virtual machine ama interpreter oo isla markiiba markaad run dhahdo u bedelaya luqadii machine code marka just in time compilation ayaa la dhahaa isla markaa aad run garaynayso ayuu wuxuu u bedelayaa luqadii machine code markaasuu CPU-ga u dirayaa si uu CPU-ga markaa u execute gareeyo marka midna waxaad u baahan tahay intaadan run garayn inaad compile garayso midna uma baahnid inaad compile garayso isaga automatically isu compile garaynaya una bedelaya source codekii machine code oo markaa CPU-gu run garayn karo marka python haddaynu usoo noqono python waxa weeyaan interpreted language codekii adigu aad source code ku qortay ayaa waxaa akhrinaya compilerkii marka the compiler reads the file containing your source code source codekii ayuu akhrinayaa markaasuu wuxuu u bedelayaa instruction oo ah luqad bytecode la dhaho marka translates the instructions into a bytecode bytecodekaas waxaa dhacaya markaa bytecodes are very simple instructions understood by the virtual machine marka virtual machinekii u bedelaya hadhowta machine code ayaa wuxuu fahmayaa bytecodekaas a separate program that's similar to the CPU of a computer marka waxaad u arki kartaa inuu yahay matalan CPU-gii oo kale waxaan oo dhan marka waxaa la isku dhahaa compilerka iyo virtual machineka waxaa la isku dhahaa Python interpreter isagaa marka u bedelaya luqadii machine codekii aan soo sharaxnay ayuu u bedelayaa source codekii aad qortay kabacdi markaa after the compiler has translated your program into virtual machine instructions marka compilerkii ayaa u bedelay programkii aad qortay instructions uu fahmayo virtual machineka and they are executed by the virtual machine as often as you like marka virtual machinekii ayaa immediately automatically u bedelaya machine code oo execute garaynaya marka programkaagii you can run mar walba adoon compile garayn ayaad run garayn kartaa waxaa kaloo muhiima markaa inaad virtual machineka waxa uu isticmaalaa librarieskaas virtual machineka ayaa og meeshay ku jiraan isagaa markaa soo qaadanaya
inta badan marka uma baahnid inaad ogaato librarieska meeshay ku jiraan. So generally you need not to be concerned with the library modules. Marka librarieska meeshay ku jiraan uma baahnid, laakiinse marmar ayaad adigu u baahan tahay inaad ogaato librarieska. Waa markaad adigu samaynayso waxyaabo gooni ah. If when you want to do specialized tasks, yeah, matalan ahaad graphics programming iyo markaad samaynayso ayaad u baahan tahay marka inaad adigu install garayso libraries ama aad kasoo qaadato internetka oo aad markaa isticmaasho. Okay, inta haddaynu fahamnay marka waa maxay faa'iidada iyo khasaaraha u dhexeeya labada concept, labada arrimood. Haddaynu ku bilowno matalan the advantage of compiled language. Faa'iidada ku jirta compiled language waxa weeyaan inuu u badan yahay inta badan inuu ka dhaqso badnaado codeka kale, sababtoo ah marka hore ayaad soo compile garaynaysaa, uma baahna marka interpreter haddana inuu compile gareeyo. Marka inkastoo luqadahan iminka interpreted languageka iyaguba ay fast yihiin oo deg deg badan yihiin, sababtaasaan marka u calaamadeen hoosta aan uga calaamadeeyay ereyga tend wuxuu u badan yahay inuu yacni ka dhaqso badnaado, laakiinse khasab maaha mar walba. Midda labaad taasna waxaa keenaysa matalan uma baahna inaad marka interpreterkii uu mar walba codekii on the fly marka uu run garaynayo inuu compile gareeyo uma baahna. Khasaaraha haddaynu khasaaro ku tilmaano disadvantage waxa weeyaan waxaad u baahan tahay marka hore inaad compile garayso, marka taas waqti bay qaadanaysaa. Haddaad rabto inaad codekii test garayso markiiba ma test garayn kartid, waa inaad marka hore compile garaysaa kabacdi baad markaa test run garayn kartaa. Khasaaraha ugu weyn waxa weeyaan codeka markaad compile garaynayso wuxuu noqonayaa marka wax la dhaho platform dependent. Matalan codekaas waxaad ku run garayn kartaa uun platformkii aad ugu talagashay aad u compile garaysay. Matalan Windows keliyaad ku run garayn kartaa ama Linux ama macOS, marka platformkaas keliya ayaad ku run garayn kartaa codekaas. Haddaynu markaa fiirino faa'iidooyin ku jirta interpreted languageska, iyaguna waxa weeyaan tend to be more flexible. Marka dynamic typing wax la dhaho ayaynu hadhow sharixi doonaa, laakiinse codekii waa flexible. Matalan string isagoo ah variablekii waxaad ka dhigi kartaa integer. Marka luqadahan kale laakiinse waxaa la dhahaa iyaga static typing oo saas kuma samayn kartid. Conceptka gooni ayaan u sharixi doonaa iyadoo video gooni ah. Maadaama interpreterkii marka uu codekaagii run garaynayo, the codeka marka codekaasi waa platform independent. Taas micnaheedu waxa weeyaan platform kala duwan ayaad ku run garayn kartaa. Interpreterka unbaad u baahan tahay inaad soo download garaysato haddaad rabto Linux ama Windows ama macOS. Haddaad rabto inaad ku run garayso isla codekii aad qortay ayaad ku run garaynaysaa platformyada kala duwan oo dhan. Disadvantageka haddaynu eegno khasaaraha waxa weeyaan uu ka yara gaabiyaa marka loo eego compiled languageska. Taasna waxaad keenaysaa maadaama aad u baahan tahay interpreterku inuu compile gareeyo uu ka yara gaabis badan yahay. Intaasaan kusoo koobaynaa videogan insha Allah. Waxaan idin rajeynayaa khayr. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.